السلام عليكم لما نكسر جوكتن شعب الصوماليات واحد الله جمعة مبارك جمعة كريم نكسر جوكتن جمعة هذه معناته نكسر جوكتن واحد الله هاي وايد السلام شعب كي نكسر جوكتن مد الصوماليات إلا في صومالي وين أي تاجنا هاي سلطته هل كان لو جانا وأنا كتاو فشيال أنا نعب إذا سلامي صومالي وين ودن لكن ما عن حاجات جفوا الصعود جفوا مقالة واو يا بنها جفوا مير وحواي horta dadka community soo bixiyay waa mahadsantihiin kuwana jafay ama iyo kuwa ii sheegay oo najafinbo dhamaantood waa idin jecelahay waa idin soo dhaweynaynaa idinkana soo dhaweeyay marka official jafaa sheegaysaa jiif xataa shacabkayga u sheegay adigana jimca mubaarak aan ku leeyahay walaashay wanaagsan waan maanta jawiga aad buu u fiicnaa xoolaha jafo magaalada iska badnaa caadi waa lagu jafo marka jirtid ayaa lagu jafaa moogtahay halka iga jeedaa waa nagtaa official oo idin shacabkayga 5 daqiiqo gudahood waxaan soo shabiyay shab aan ku siinaya lagu xanto lagu xasuusta ka horeyso marka horta caaw maxaa waysaa bulshada shab ku soo siibo caaw bulshada waxaan u hayaa barnaamijkeeni barnaamij ka duwan oo maya waxa waaye qiso dhacday قصة دعدان عوها أو ليشيكي رنتي أنيقاني أد ولا يابي إن نلي وداعو أديكا يو شعبك إن نلي وداعو عن جعل استعابو مركا إن قصة دا إن وحي كود عضي نين عضي أو ضدك هوري ما شاء الله ضدك هوري وحاول ددون أكسن ضدك عدنا وحاول حوضا إله نموتي الله مكتهر ردوداي سمع ردوداي ضدك عاد ردوداي الله ضدك ولا ما شاء الله كودي كل جود لكن ما شاء الله وانوسمين ضد في عنا كجرو يدخلون السجران ما قرتي مرك أمرنا قصة عضي أيها كود عضي أو إيش وحوء هاي نين ما شاء الله وضدك جعل أو عسنا جعليهن أو حاجئه أو ناكسن صح غير مقدشنه أيوة قرتي ما قرتي صح marka ninkii odayga ahay muqdisho imaaday safaridiisa hodiisu ka imaaday markuu muqdisho imaaday ninkii odayga ahay wuxuu lahay guriyo badan dadka sadka hore waxa lagu yaqaan in dadka xiriiriyaan oo ehelka iska dhama Soomaali ma xataa la isku xiriir jiraan waka ayada iga sheekaysa la naxariisteen waa garata oo maleena odayga marka muqdisho markuu imaaday amranay guriyo badan buu lahay markaasuu wuxuu yani guriyihii qaar ka mid ya buu wuxuu siiyay familkiisa oo hoose oo adiga yani qaraabo hoose jirta moogtahay qaraabadii hoose ayuu siiyay markuu u qaybiyay lawil qaraabadaas ka mid oo adeer uu ahay adeer sukaad ma aha adeer suko uu ahay ma garatay sax adeer sukaad uu ahay labadii wiil markii uu ii sheeg uu iskugu wacay oo ii sheeg wuxuu siiyay dhaxalkii guryaha qaar uu ka siiyay الله فعلا ولا نحرسته ولا لبزانا انت طلب الله نحرسته من انت الله نحرسته الله يرحم راحمين الله يرحم راحمين جنة الفردوس له وبشاره وعجيب بس markii uu dhintay ninkii odaga ahay markuu dhintay Allah u naxariisto oo gurihii labadu wiilna ay qaateen oo adeerka uu ahay boosaskana uu qaybiyay qaar u soo haray marka qaarka asaa iska lahaa odagii uu dhintay markii uu dhintay labadii wiil oo adeerku u ahaa oo booska uu siinayne ayagana waa dhinteen muddo kadib الله يرحم الراحمين الله يرحم الراحمين marka waxay ka tageen waali meeside waxa ka haraan Allah mugtay صح waay ya marka ilmay ka tageen ilmihii dhaxalkii bay qaateen oo aabayaashooda labadii nin dhaxalkooda qaateen waan gartay markii labadii dhaxalka asaas ku qaateen carruurta soo hartay baa waxa hunguri ka galay carruurti ma hadana sii wareega dhaxalka carruurti oo wax dhaxasho waay carruurtii labadii nin oo aabayaashooda wax ka dhaxleen baa waxa hunguri ka galay intii yarar awoogood u soo hartay ayaa hunguri ka gashay maxay ahayn kuwaasi maankii bilaayihiin hadday na arkayaan ama hadday na maqlayaan ba kulliba waxa waa qiso dhacdo waa og yihiin dadkii ayaga soo buugan anaga laakiin waa loo sheegaa laakiin maxay hunguri u galay hunguri wuxuu ugu galay mataqaanaa horta ibn aadamka sidiisa banaan baa waxay iska yihiin mataqaanaa ya dhuntaas u duleelaan waxa waa si wax ku cuntaa ma garatay iimaanka dadka ka tagay marka labadaas yani nimanka oo yani oo hunguriga ka galay oo awoogooda oo ka dhintay wuxuu hunguri u galay ku badsa camal oo wuxuu awoosi miyaa ku yaraatay
mase iimaan la-aan hadda waa ujeedaan iimaan la-aan iyo wax awoosiya ku yaraatay dadkii waxay iska jeclaadeen xaaraanta waxa waaye marka sadaata midaan kaan dhex galo iiso dah awowga labada wiil hal meel ma isugu daray mase u kala qeybiye boos iyo boos u siiyo labada wiil uu kala qaybiyay macna ehelka xataa loo qaybiyay labada reerka marka boos uu siiyay marka guriga markuu qaybiyay labadii oo boos uu kala siiyay kadib odagii tiisi uu reetay intiisa markaas kadib tiisa la hunguriyay hunguri yani ilba hadda dad buu ka tagaa muutay sax waaye Allah xariisto odaga marka yani waxa oo jiro wax iska dhaca waaye Soomaalida way ku badan tahay inta badan laakiin laga waantoobo aad u fiican waaye saldato waxaan hadda ilma dhalan kuwaas ilmahaas sagsaga adduunku ahaanayaan waa gartaa laga yaabo inay dhaleen xataa waxaan ka ogolaan anaga yani dhabarka ku sitaan hadday u badato ma ku sitaan umaleynaa ma ogi horta ka soco marka aniga waxaa mid baan ku darsanayaa saldaato waxaanan korwayl oo wada indhaal qofka dadka islaamkana waxaa la rabaa ummadda nabi maxamed ma fahanti waxaa la rabaa alayhi salaatu wasalaam inay kala xishoodaan qofka markuu iimaan leeyahay saldaado wuxuu isceliyaa qofka iimaan markuu leeyahay waxyaalaha qaarkoodna soorta qaarkoodna lama cuno si xunna soor looma raadiyo ma fahanti marka ilaahay iimaanka nagama qaado hadda waxaa laga yaabaaba hadda inay markaas ilmihii odagaas imaadeen adeeradood ahaa amba eedayaashood maxay samayn karaan dadkaas ay ku samayn karaan marka u tagaan is leedahay waa dhacayaan dilayaan waxay rabaan ku samaynayaan waxaa waaye ana xoog le waaye meesha marka ma aragtaa laakiin ma laga yaabo inay la kala xoog badnayn laakiin la kala xishoonayo dadka ayaga waxaa laga yaabaa xitaa dadkaas gurigaas oo aabahood dhintay inay waxba ka ogeyn laga yaabaa dabcan ilaaha og horta walaalay amranay waxa waa mataqaanaa haddii maanta wax lagu marsiiyo sidee kuu marto waay inuu ilaahay kuu gargaaro mehe oo garab ku siiyo laakiin mar haddii yacniba lagu soo hunguriyo daacad hungooda laakiin herele daacadda mar feeraha ka dilacna Soomaaliya haqa feeraha ka dilacna haqa feeraha ka dilacna marka waxaas iska joojiyaa leeyahay dad badan Soomaali badan way jirtaa oo ii sheeg oo guriga jecel oo guriga islaameed iska haysto waxaa maqla jiray heer hebel ayaa guri iska haysto caaw waxaa ay soo istaajisay awoow dad guri ka haysto oratiida ilaahay way dhacdaa ha badan Allah ilaahay awoow dad guri ka haysto aniga waxaan leeyahay waxa soo markii lii sheegay oo leeyahay sheegay meel halkan marka waan yaabay waa wax dhaco dadka Soomaaliya way soo dadka waa wada qaxin moogtahay waa la qaxay hebel guriga laga haystaa maqal jiray heblaay hebel guriga ka haystaan hebel saasi ahayd laakiin awoowe la yaabto Soomaha awowgiis waa awowgi oo ii sheegay laga soo faracmay oo alla ilaahay dadka soo kuwaas iimaan ma leeyahay waa Janis meesha Janis baa iska gaala maaragtay qof walbo yani dadkii horena ma aha dadka hadda waxaba qaxa lagu wada dhashay dadkii hore qaxa lagu dhashay waxa waaye orada lagu jiraa reer dudaa la iska yahay ma garatay Soomaali waxa karta qaxman karta dadka dad waaweyn oo aniga dhali karaan ayaa waxa arkaysan dadka leh gurigiisa u dhahayaan laakiin ma filanaynin awoowahaada aabaha adeerkiis aabaha abaal u sameeyay in aad حقيقة كوسيت رابسته لكن انت مالكن انت مالحنا يجينا والله وبالله وطلع تتغار انت مالحنا يجينا صور واحدة معها لكن سرقته الفيس كمان أمانة حدي ما انت قلت هذه ورطتك ثانية لين حولود على عليو ما انك ستحاد وحواي ترتيبه ولقوب هنا وابلغوا يا عاب مجبتو ورين دول هذا وصح دول نكي أوجس كدعي يا دول نكي أوجس كدعي مركز دائما ما هني دائما ما بشو سينا يا ديرياشيس ديرياشيس لكن محلينا نسمع عاوق سداس هاي او ايدي ودي او اي شيء aan la yaabana idinka bal sida ila tahay bal suuraysta qof awoogaay aba xanaaneyn jirtay oo wax idin qaban jiray oo waxa waaye oo asxaab badan sameeyay see ku dhici kartaa ina hunguriyeyso xuliis wallahi ana waaya war ilaahiyo ilaa umada Soomaaliya adna kartaada tula adna karfantiya tole waay wala dhibaato taas Soomaalida sidaas u badan Soomaalida caadooyin badan adduunka ay kaga dugan yihiin waa waxa soo leeyihiin ma garatay waay saldato mid waa ku weydiinaya soo sheeg waxaan ku weydiinaya oo waxa ii sheegtaa waxa geelka soo muuhino geelka kan dheerka mid ka dheer xoolaha mid ku dheer geel baan ka saani
geel waa maqashno geelka kan oo weynka waa ka saan oo dheer laakiin dheer kaha ka weyn oo kurtun kale geelka waxaa moodo mataqaanaa lab iyo dhidigiis iyo kala sheeg inay dhehaysaa moodo dhidid maamul geelka ma dhidido dhidig lab iyo dhidig aa lahaa nin iyo naag nin iyo naag aa u taqaanaa maaha nin iyo naag geelka ninka iyo geelka